وما سنتين. بسم الله الرحمن الرحيم. maadaama dalkeenu ku yaalla goob istiraatiiji ah waa inaan taabagelinaa sidii aan ku samayn lahayn aagag ganacsi oo xor ah oo ay dunidu Soomaaliya ku timaado maadaama ay jeeda casriga shaqooyinkaas aan soo sheegay oo aan ka soo baaraan degnay waa muhiim si dalku uu dhibka uga baxo loona kordhiyo dakhliga iyo miisaaniyadda si shacabka Soomaaliyeed loogu adeego waxaan rabaa inaan idin xasuusiyo anigu waxaan la wareegay xafiiska ra'iisul wasaaraha iyadoo aan qasnada dawladda lacag ku jirin iyadoo miisaaniyaddu ay tahay 260 milyan sanadkii waxaan shaqada ka tagay iyadoo qasnada dawladda ay ku jirto 104 milyan oo dollar waxaan shaqada ka tagay iyadoo ay jidka ku soo jirto 630 milyan oo dollar caawa nasiib darro waxaa dawladda Soomaaliyeed lagu leeyahay 107 milyan oo dollar oo deyn ah oo idinka la idinka rabo inaad bixisaan oo ku dhacday shaqo xumo iyo maamul xumo awgeed caawa waxaan idin sheegayaa nasiib darro in 600 milyan oo jidka ku soo jirtay ummadda Soomaaliyeed ay ka joogsatay hufnaan iyo maamul xumo awgeed waxaan hubaa 100% inaanay taasi dhacdeen anigoo haya mas'uuliyadda dalka waxaan idinkugu bishaareynayaa in degdeg loo xallin doono haddii la ii doorto xilka madaxweynaha mashruuca ugu weyn oo dalkan laga hirgeliyay 20kii sano la soo dhaafay wuxuu ahaay inaan dalka Soomaaliya hay'adihiisa dhaqaalaha ku xirnay hay'adaha dhaqaalaha caalamka oo aan qarka u saarnay in deyntii qaar laga cafiyo aan ka soo tagay shaqada iyadoo inta kalena laga cafin rabo caawa dalku wuxuu khatar ugu jiraa haddii 15 bisha aan la dooran madaxweyne fahamsan sidii caalamka loola falgeli lahaa in 17 May deyn cafintii dalka laga joojiyo Soomaaliyana ay 7 sano kale dib u noqoto taasi waa arrimaha aan la damacsanahay dhaqaalaha dalka sugidda amniga iyo yegleelidda garsoor madax bannaan amniga iyo garsoorku Soomaaliya idil way isku raacsan tahay inay yihiin laba ka mid ah halbowlayaasha dawladnimo ee qaran ku tiirsan yahay waxaa iga diyaar ah hiigsi qaran oo aan ku hirgelinayno amni iyo garsoor la isku halayn karo bulshaduna ku hiran doonto waxaan fahamsanahay ka hogaamiye ahaan in adeeg caafimaad in la bixiyo mid waxbarasho laga shaqeeyo shaqo abuur la hirgeliyo dawlad wanaag lala dagaalamo musuqmaasuqo la helo garsoor madax bannaan intuba ay qayb ka tahay sugidda amniga haddii qof Soomaaliyeed uu ka fikiraayo in la sugo amni keliya in lagu keenayo ciidan waxaan rabaa in dib loo fikiro marka aan leeyahay caqabada isbarkan dawladnimadu waxay u baahan tahay fahan guud oo isku cufan waxaan ka dhameyn doonaa dhismaha iyo horumarinta ciidanka madax bannaan siyaasad waxaan dib u habeyn dhan kasta ku samayn doonaa ciidamadeena si ay u gutaan waajibaadka ka saaran dhowrista dastuurka iyo shuruucda qaranka sida amniga muwaadiniinta iyo ilaalinta xuduudaha dalkeena dhismaha ciidanka waxaa qayb ka noqon doonta damaanad qaad buuxa oo xuquuqdooda ah taasoo aan gaarsiin doono in askariga shaqaynaya kan howlgabka noqda kan dhaawacma iyo kan dalkan difaaciisa u dhinta intuba ay helaan xuquuqdooda iyo daryeelka qoysaskooda oo dhammaystiran
dalka waxaan gelin doonaa dib u xoreyn dhab ah oo ay qayb ka yihiin dhammaan dowlad goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si loo helo amni iyo xasilooni lagu naaloodo intii aan joogay xafiiska Soomaaliya oo idil way og tahay waxaan dadaal badan ku bixiyay dib u habeynta ciidanka oo dhalisay in askari walba uu xuquuqdiisa si joogto ah u helo waxaan bilownay dib u xoreynta dalka waxaana ku qanciyay dunida inay na garab istaagaan nana taakuleeyaan dhinac farsamo iyo dhinac dhaqaale si ciidamadeena geesiyaasha ah ay dalka u xoreeyaan kasokow dib u habeynta ciidamada qalabka sida hadafka wejiga koowaad ee howlgalladii aan ka shaqaynayay waxay ahaayeen kow xoreynta shabeellada hoose labo xoreynta xeebta saddex xoreynta jidka isku xira magaalada muqdisho ee baydhabo afar xoreynta shabeellada dhexe si magaalada muqdisho looga qaado dhagxaanta oo ay nabad u noqoto kadibna si siman loo xoreeyo dalka oo dhan waxaan rabaa inaan xasuusiyo markii aan howlgalladaas ka shaqaynaynay ciidamada dowladda Mareykanku waxay ka garab dagaalamayeen ciidamada Soomaaliyeed waxay siinayeen agab iyo saanad ciidamada Soomaaliyeed waxaa dushooda socday diyaarado si looga ilaaliyo miinada soo eega buugagta nasiib darro taageeradaas waxaa u dambeysay 2 bilood kadib markii aan xafiiska ka soo tegay haddii qof marka uu shaki uga jiray inay muhiim tahay in la fahmo sidii dunida loola dhaqmi lahaa sidii uu safiirkii halkan soo istaagay sheegay taasaa tusaale idina qorshahayga waxaa qayb ka ah dhismaha iyo dhammaystirka golaha adeega garsoorka dalka oo la isla ogol yahay waxaan samayn doonaa maxkamaddii dastuurka ahayd ee dalka waxaan xaqiijin doonaa madax bannaanida garsoorka dalka waxaan dabar jari doonaa musuqmaasuqa iyo laaluushka ragaadiyey hay-adaheenna garsoorka waxaan dhisi doonaa xafiiska gardoonka qaranka oo ah xafiiska ilaaliyaha dadweynaha waxaan Soomaali u ballan qaadayaa garsoor u madax bannaan gudashada waajibaadkiisa dastuuriga ah iyo howlihiisa maaliyadeed isla markaana ka madax bannaan hay-adaha fulinta iyo sharci dejinta si uu u noqdo mid lagu kalsoonaan karo la iskuna hadlayn karo haddii aan garsoorka la madax bannayn dunidu naguma soo dhiiranayso maalgashi caalami ah la heli maayo amniga lama sugi karo dalkana lama xasilin karo waxaan rabaa Soomaaliya inay fahamto inta uu madaxweyne digreeto ku haysto garsoorka dalka dalkani lama jaan qaadi karo dunida inteeda kale sidaas daraaddeed waxaan ballan qaadayaa in garsoorka laga madax banneeyo hay-adaha fulinta loona dhammaystiro agabka ay u baahan yihiin si ay u gutaan waajibaadkooda Soomaalina dadkaas Soomaaliyeed oo hawshaas loo igmaday oo la xisaabtanto dowladii say macno u yeelato waa inay dadkeeda wax ku soo kordhisaa si dowladdu ay u noqoto mid kalsooni ka haysata shacabkeeda waa in qofka muwaadinka ah uu dowladnimada ka dhaxarka noloshiisa sharaftiisa iyo jiritaankiisa shakhsiyadeed waa inuu ka dareemaa caafimaadkiisa qof ahaaneed iyo kan qoyskiisa oo uu adeeg caafimaad ka helaa waa inuu barbaarin iyo waxbarasho ahaan ka helaa hay-ado loo diyaariyey korinta aqooneed iyo waxbarista cilmiyeed ee qofka muwaadinka sidoo kale waa inuu qofka muwaadinka ah uu dowladnimada ku haystaa kalsooni iyo damaanad qaad buuxa dhinaca amnigiisa qofeed ama kan ganacsigiisa si aan dunida ula tartanno waa inaan leenahay bulsho aqoon iyo xirfad leh
waxaana ku dadaali doonaa bixinta adeeg waxbarasho aasaasi ah oo ay ka qayb geli karaan dhammaan qaybaha bulshada.